السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا وانا السلامي waxaan rabaa maanta inaan isoo bandhigo shaax aan ugu talagalay waqtiyada maanta difaaci loo baahay ma sha Allah ilaahay baa bini'aadanka ilaaliya ma sha Allah laakiin taxadarkuna way fiican tahay waa olifteeni aan wada garanaynay saad ogtiin ma sha Allah aan cabno ayay ka kooban tahay olifta caleenteedii weeyaan akhwaat saad arkaysaan ما شاء الله كنا روزي برا لبدو ذبوا حيين هاي antioxidant فيتامين سي جا هي هاي كويهين ما شاء الله وحدير كاني وحدتك عاصمة وكله أم بتشس أم فيكتين وكله لابتو أي حرنتو هدو قبوق كده وكله إن لابتو وكله دفاع بأسمين الساهي سبالة هذا ما شاء الله وجد إن بعدين مركز صدق نجد مركو هو ولا وده الشيء ده قادوين سلاك قف وكوشو بنا يدلا يرصاص وكله biyo baad soo karkarinaysaa wad kula biyo xoog u karkaraya kula qanaysaa wad ku daboolaysaa ka bacdi wad hadhow baad cabaysaa ma sha Allah maaha waxa laga saarayo nuxurka iyo caafimaadka laga ma saarayo muhiimadan u baahanahay waa vitamiinadooda inaan helno sideeda ma sha Allah lama soo koobi karayo oliftu ma sha Allah difaaciye fara badan bay leedahay iskinkaaga isbedel bay ku sameynaysaa maqaar ahaan روزي oil كيجنا وسكين كولا مرتدا ساد وقتين كان عس أدركيسين مقاركة وأنا شيء قالي أو مركل لقى سماي سليد مقاركة بقال وتهاي سدا درتيد إن وحيا بضع ما شاء الله سكين كا وحي كميتها حدد جودي كعبتنا سكين كا أساس وكلو إنه سمينا دفاع بقوية ليا واي فيتامين سي بوتا ما شاء الله ووقت كلو باين فيتامين سي ندد قاتان إن olifta sideedana oo wada waqtiin ma sha Allah wax badan bay iyadana looga koomi karin xagga maqaarka xagga madaragtay cabitaanka waxa laga sameeyaa xitaa liquid afka lagu shubto oo laga soo tuujiyo geedaha oo la isku daweeyo waxa laga sameeyay kaniino marka ma sha Allah ma soo koobi karo olifta isoo saasi leeg ugu fiican dadka asmada leh dadka hargabka ku soo noqnoqda difaac yar leh wuxuu sameeyaa difaac saddexda markay isku qaataan waa maado difaac u siinaysa waxa inta u dheer oo rabo inaan soo bandhigo walaalo fish oil kan inay qaataan collagen inay qaataan hooyooyin maadaama tiin naftiina ilaalisaan ma sha Allah vitamin kale waxa jira la yiraahdo fountain of life ma sha Allah oo ma sha Allah isaguna 10 drops la qaadanaya maalintii subaxii iyo habeenkii baad qaadan kartid ma sha Allah si difaacaagu uu soo noqdo dad wada arkaysan waa vitamin aan caadi ahayn ma sha Allah oo difaacaga kor u keenay ma sha Allah vitaminkaas ilka xitaa uu leeyahay ma sha Allah waa kaas dadka ilka haysta ilka carrada ilka ciridka oo kala buko oo kale ugu fiican tahay akhwaati iyada iyo ka hadda isku qaadatid ciladihii ku haysto dhan ma sha Allah feedback fiican baad ka soo celinaysaa ma sha Allah wana natiijo loo joogay qaab kala duwan bay walaalo ma sha Allah qaadan kara waxyaabaha uu ma sha Allah ku yahay dadka badan oo kansarka ilaahay kaga qaaday baa jira waxyaabo fara badan oo waxa jira ay kamid tahay ma sha Allah qofka bini'aadanka dhikarkiisa oo kale bay feedback uga soo celiyeen dadka ninadii waan joojinay iri baa jira macaanka oo kale ilaahay ma sha Allah ugu wado feedback fiican ka soo celiyo oo macaankii ma sha Allah dhacay kacay la dhibana waliba siiba dumarka markuu hot flash ku dhaco kale waqtiyada menopause oo kale isbedelka oo kale waxyaabadaas oo kale aad ugu fiican dumarka difaacuna kor buu ka dhigaya ma sha Allah saad wada ogtihiin dementia xasuusta markay ka tagto aad ugu fiican tahay dadka wadna xanuun kale way u fiican tahay ma sha Allah timaha kale dadka ka daadanayaan oo kale wuxuu sameeyaa waxyaabadu sameeyaa timaha waan soo bandhigi doonaa insha Allah timaha aad ba ma sha Allah isbedel qofka afkana uu ka qaatay saliidiisa uu ku darsaday shampoogiisa uu ku darsaday ma sha Allah shampoo wata oo caadi ahayn feedbackna laga korkeenay ma sha Allah waxa walaalaha ugu soo bandhigi laa wadna xanuun kalena aad ugu fiican yahay ma sha Allah siiba qofka stress ka dareemaya daalka dareemaya waxa soo dhan ma sha Allah ugu yahay bacteria jirkaaga haduu ku soo noqonayo viruska oo kale hadaad ul fududahay dadka viruska iyo bacteria ma sha Allah ku soo noqonoqda aad ba ku difaacaysa bahashaasi ma sha Allah dadka qaar pollution oo kale ay dhibayso high feverada waxyaabada badan ma sha Allah toxic waxa soo dhan uu kaga raysanaya high feverka hadaad isteen weydeen geedkan caadi maaha ma sha Allah waa geed aan inaba caadi ahayn ma sha Allah wax badan jirkaaga ka dareemi doontid haddii wax kasta ma sha Allah ilaahay baa dawada haya laakiin
maasha allah. waa waxyaabada inta badan looga soo joogay ee walaalo badan feedback ka soo celiyeen in aniga personally aan tijaabiyey maasha allah. oo energy ahaan xitaa qofka raadinaya inuu energy helo kale maasha allah uu helaya maasha allah. duu cabo sideeda toos u qaato sida Soomaalida inaan iibsano shaygii lama rabo inaan dhigano meel oo nacabi weyno qofkaas inuu lacagtiisa marka hore iska khasaarimayo. waa dhalada yar isdaba wadi karaa, boortadiisu ku ridi karaa, waxuu maanta oo dhan raadinaya maaha. biyo kulli qowma baahno, afkiisa ku tuujisanaya maasha allah. dropsyadiisa uma baahno maasha allah. ilmaha 12 jir wixii ka weyn afkay ka qaadan karaan, wixii ka yar waxa loogu darayaa sharaab. biyaad ugu dari kartaa, limad ku dari kartaa maasha allah. 2 jir ilaa iyo wixii ka weyn waa ugu dari kartaa maasha allah. aad u anfacaysaa akhwaati. siiba caruuraha waa ogtiin xanuunsan ee difaacoogu yar yahay aad bay ugu fiican tahay. kuwa epilepsiga leh, kuwa maad aragtay ADHD-da leh, kuwa autismiga leh, kuwa ODD-da leh, qof kasto ilmo kastoo xanuunsan difaaciisa uu hooseeya. ilmaha difaaciisa haddana kor loo qaadin ee hooyadu maasha allah taxadar badan sameyn iyada unbuu kusoo noqonaya culayskiisu. markaa siduu culaysku kugu soo noqon ilmahaaga xooga saar oo si wax taya leh collagenka si fish oilka si maasha allah. tan si aad baad isbedel u hadsaa. hooyooyinka aan karin karin lafaha collagenka karaacinka weeyaan aan dhulkeena ku karsan jirnay, laakiin qofkaan karin karin tan waa tii badda akhwaati. waa kalluunka laga sameeyey. marka hadduu collagen uu siinayo fishka uma baahno inuu fish oil siiyo, waayo fish oilka sadugtii aad u fiican yahay. vitamin D-na uu wataa, isagaa wata digiisii saad wada arkaysaan. inaad arkaysaan jecela insha allah. waa ka vitamin D-giisina uu wataa maasha allah. waa fish oil aad u fiican. haddaad siinaysaan kaasoo kale waa collagen isagana. labaduba waa kabada laga sameeyey, kalluun baa laga sameeyey saad arkaysiin. marka maasha allah aad u fiican ilmaha inaan waxaas la siiyo. ininka hooyooyin aad qaadataan, waayo qofku markuu qof xanuunsan hayana wuxuu u baahan yahay difaac fara badan, wuxuu u baahan yahay ilaalin badan. haddaabad keer aad samaynaysid oo qof kasta aad keergaraynayso, hooyada ha noqoto, ilmahaaga ha noqoto, walaalka xanuunsan ha noqdo, naftiina u roonaadaan dhihi lahaa. qof kastoo qof xanuunsan haya naftiisa inuu u roonaado waa muhiim. awalan isagu markuu caafimaad qaba ayuu qof kalena caawin karaa. laakiin hooyadu hadday soo dhacdo amba qofkii qofka keergaraynaya hadduu soo dhaco waxba ma keergarayn kara akhwaati. marka insha allah waxaan leeyahay intaasaan igu soo gabagabaynaya insha allah. wixii su-aalaha waa iisoo qori kartaan. wixii aad insha allah marka waqti hayaan iga soo jawaabay insha allah. isku daya waad igala soo xiriiri kartaan saliidan insha allah. faa'iidada dheeraada waan nihayaa insha allah haddaad u baahan tihiin. saliid maaha waa vitamin, laakiin maasha allah wax walba ka kooban tahay. bahashaas cadayga oo kale waan nihayaa insha allah. walaalaha maasha allah ilka oo kale casaadeen oo kale amba la xoqo oo kale ilka carrada wax la yidhaahdo leh dhibaatooyin ku qabo kale ilmaha xitaa maasha allah seef u yahay saad u arkaysaan. ba maasha allah la sameyn karaa. afka dadka qarmuunka uu kasoo baxo uu af urka oo kale lagu sheego aad bay uga baabiinaysaa maasha allah. waxyaabo kale insha allah iyadana ani soo wada jiro insha allah akhwaati. saad iga barateen insha allah wax badan baan rabaa insha allah in caawa nii soo gudbiyo hadduu ilaahay naftiidaayo. ducadana insha allah laysku soo kabo akhwaati. waa muhiim in laysku soo duceeyo. qofka bini-aadanka inii faa'iideynaya waxa kaliya niga codsanaya waa duco insha allah. wixii antala iyo wixii su-aalana insha allah hoostaad igu soo qoraysaan. qofkii raba alaabta inuu igala xiriirano igala soo xiriiri karaa insha allah. asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakaatu. taasaan rajaynaya insha allah.